qof walba oo Soomaali ah wuxuu og yahay ama aaminsan yahay in dawladda Soomaaliya musuqmaasuq baahay ka dhex jiray hadda waa xaqiiq balse heerar kala duwan buu soo maray welina wuu socdaa musuqmaasuqa dalka ka jira waa nuucyo badan yahay waxaana kamid ah ku tagrifal awoodeed xatooyo xoolo dadweyne iyo qaraabakii lagu bixiyo shaqo ama qandaraas sharciga iyo cadaaladda oo aan loo sineen laaluush bixin iyo qaadasho dhammaan falalkan waxay ku faafsanaayeen laamaha dawladda waxaana musuqmaasuqu uu qayb ka yahay waxyaalaha hortaagan dawladnimada haddaba maxaa laga qabtay dawladdana maxaa uga qorshaysan baabi'inta musuqmaasuqa cudurka oo la ogaado lana ogol yahay jiritaankiisa waxay fududeysaa daaweyntiisa bilihii la soo dhaafay waxaa musuqmaasuq loo xiray agaasimayaal saraakiil ciidan shaqaale maxkamadeed iyo wasiir shaqada laga joojiyay waxaa kaloo la bedelay garsoorayaal iyo gudoomiyaal maxkamadeed kuwa oo goon jiray gar eexeed qof walba Soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ah oo xil u haya dawladda Soomaaliyeed oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda oo ka shaqeynaya inaad musuqmaasuq waxaan ku sheegayaa inaadan alfanayn dawladda Soomaaliya waxay dhisaysaa hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana kormeer iyo la socod madax bannaan ay ku sameynayaan dhammaan laamaha dawladda si isla xisaabtan uu u yimaado ka hortagga musuqmaasuqa wuxuu Soomaaliya u horseedayaa kobac dhaqaale oo looga baxo saboolnimada iyo horumar ku baahan dhammaan geeyiga Soomaaliya waxaa hadda laga dareemayaa faalahaas warbixinada wasaaradda maaliyadda dhanka kale hay'adaha caalamiga ah ayaa bogaadiyay daahfurnaanta iyo habka bixinta mushaaraadka oo isbedel lagu sameeyay dhammaan bulshada Soomaaliyeedna waxa ay qayb ka qaadan karaan la dagaalanka musuqmaasuqa waa bilow madda hawsheeda dalkan waxa meesha istaajiyeen arkaysaan waa musuqmaasuq marka arkaysaan argagixiso ama xajir waxa naaxiyay waa musuqmaasuq markii loo diiday askarta farashii ku jirto qanaacada ku leeyahay mushaharkooda waa musuqmaasuq marka idinka mushaharada la diiday ama shaqaalaha dawladda rayidka loo diiday mushaharadooda waa musuqmaasuq lacagtu way jirtaa qof jeebkiisa aad waana joojinaynaa